shirka toddobaadlaha ee maamulka gobolka Banaadir uu shir gudoominayay gudoomiyaha gobolka ahna duqa magaalada Mudane Cumar Finish toddobaadkan waxyaabihii loogu hadlay waxa kamid ahaa barnaamijka canshuuraha ee gobolka Banaadir uu ka wada magaalada Muqdisho iyadoo guulo waaweyn laga gaaray orolihii wacyigelinta canshuuraha isla markaana degmooyinka gobolka Banaadir loo dhameystiray agabyadii ay ku shaqeyn lahaayeen iyadoo si daahfurnaan ahna loogu shaqeyn doono si canshuuraha loogu soo aruuriyo gobolka Banaadir loogu celiyo shacabka isla markaana loogu qayb qaato adeegyada aasaasiga sidii dib u dhis loogu sameyn lahaa hadii ay noqoto wadooyinka caafimaadka waxbarashada iyo arimaha kale oo daruuriga ah ee shacabkan ku dhaqan magaalada Muqdisho si canshuurtooda ay u noqoto mid iyagu dib loogu celiyo sidoo kale shirka waxa loogu hadlay arimaha bilic soo celinta magaalada Muqdisho iyadoo maamulka gobolka Banaadir oo muddooyinkii u dambeeyay dardargelin xoogan uu ku sameeyay bilic soo celinta magaalada waxaana aanu la soconaa in diyaar garow xoogan loogu jiro 60 sano guurada ee dalka Soomaaliya oo ah maalmihii xurriyadda iyadoona aanu filayno in sanadkan ay noqoto sanad ka gedisan sanadihii hore isla markaana uu ku soo beegmi doono sanad dib u dhis balaaran dhinacyo badan ah ee laga sameeyay caasimaddan magaalada Muqdisho